بريتا أرورتي سكولا بلوسية وحلقوا توقن دونا سلاقات كيوريك سلاقات قبيرك كذي محمد عيناش قولت عبد القادر نيل ورتكاس ورك هذا آخري أنا آخري wuxuu ahaa wariyihii raadiyaha dowladda ee Radio Muqdisho 3 bishii Juulaay 1972 ka akhriyay warka ku saabsan dilka saraakiisha ciidamadii kacaanka meesha reer mush askar baa haysid waay askartii qoriyo cabaysanaysan oo qoriyo cabaysanay markaas Ismaaciil Albuquer darajadiisa markaan u tirinin oo isla markaana wasiirka warfaafinta isla markaana fakrad ha ku daalaysan فيش النمبر تايتل كيس أنا أخرينه. واي منك ما تيكرت. كوريو. أي ورك اللي يديب. واي. ورك عن أنت كلام اسك. بريتا أرورتي. سكولا بلوسية وحلقوا توقن دونا. سلاقات كيوريك سلاقات قبيرك كذي. محمد عيناش قولت عبد القادر نيل ورتكاس. ورك هذا آخري. أنا آخري. إن بريتا لا توقني. maxamuud xasan xaaji cumar waxa uu xusuustaa warkii uu aroortaasi ka akhriyay Radio Muqdisho kaasi oo wali ku suntan inuu ahaa warkii ugu horeeyay ee la xiriira dad siyaasad loogu dilo magaalada Muqdisho ama guud ahaan Soomaaliya ma garad markii ugu horeysay niman siyaasiyiin siyaasad loo toog xukun loo dilo siyaasad xukun siyaasad loo dilo waay halka bad kamay may joogsanba sideedaba warka la mid waliga ma akhrisay qof Soomaali la tooganayo ama siyaasad ama xukun kalaba dad badan oo tooganayo waa sheegay warkooda laakiin dad qiimo leh ma aha saddexdan intii waa ka duwanaayo diyaar dad siyaasad loo dilayay kaliya ma ahan waxa uu ku xusuustay maxamuud warkaasi inuu ahaa warkii ugu horeeyay ee la xiriira dad siyaasad loogu dilo gudaha Soomaaliya laakiin waxa raadka ku reebay waxa kamid ah in dadka la dilay ee saraakiisha ah laba kamid ah uu si toos ah u garanayay salaad gabadh ismaan noqon laakiin labada kale waa isla aadiya hana ana soo وفود بدن بان سو راعن محمد عيناش قولت عبد القادر ديلنا وديلك هي وديلك ku yaala Shalamboot talyaanigu baa haystay waa sax laasan ka wada qadin jiray markaan beeraha janaale ka soo warramay aroortii waa warku bax saacad kadibna waa la toog aad marka warka kaliya miyaa laga hadlay war kaliya miyaa la sheegay mise faal la socotay oo laga hadlayo nimanka noloshoodii taariikhdoodii marka fiiru dadkoo dhan ka dhigay dadna sharaa'idka lagu soo qoray sharaa'idka markaa jiray laakiin meesha qura ee waddanka dhan laga dhigaysanayo reeran qulsha waa sax warkiis la sugay sharaa'idku xamar ma dhaafisnaa marka wax faala iyo waraysiyo iyo kuma jirin war qalalana la akhriyo كعنكو سيفتي صحيرسو باكرتو ما دام كهل كرام lama soo koobi karo wararka uu aqriyay maxamuud xasan xaaji cumar oo waxa uu kamid yahay dadka ugu akhriska badnaa xagga warka marka la eego warbaahintii Soomaalida iyo xitaa BBC-da maadaama uu ahaa shakhsi loo xulay inta badan inuu warka aqriyo kuna wanaagsanaa war akhrinta laakiin BBC-da inta joogtay iga sheekay wararkii waliba warar saameyn lahayd akhrinaysa oo waqtiyo adag ahaa warkan ruushka nabaa horta haye aad baan ruushka u nabaa haye wadaxweynaha ruushka dhintay برشنيف هاي حالته waxa magaalada Moscow ku baxtay ninkii madaxda ka dalka Ruushka Leonid Brezhnev فكر maxaad u isticmaashay waa baxtay nabcaanshaha Ruushka waa ninkii Kuubaanka inoo keenay dagaalkii soo 77 naga saftay ayna jabiyay Soomaa waa sax marka colaadii aad u qabtay حالته magaalada Moscow ku baxtay ninkii madaxda ka dalka Ruushka Leonid Brezhnev way wararka laga heli karo kaydka BBC-da waxa kamid ah geeridii Allah u naxariistay madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre oo ku geeriyooday dalka Nigeria wararkii kale saameynta lahayd akhris waxa kamid ahaa geeridii Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre madaxweynihii hore dalka Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre ayaa ku geeriyooday dalka Nigeria iyadoo dibadda uu ku maqan yahay waxa la rumaysan yahay dhowr iyo 80 jir inuu ahaa qaraabadiisuna waxay sheegeen in uu bukay gurigiisa uu ku lahaa magaalada Lagos oo uu geeriyooday iyadoo saaka subaxnimadii lagu sii wado waqti hore cusbitaalka Maxamed Siyaad Barre waxa uu xukumayay dalka Soomaaliya muddo 22 sanadood intii uusan ka cararin magaalada Muqdisho iyadoo uu ku jiro mid ka mid ah baabuurta dabaabaadka muddo 4 sanadood laga joogo markaas oo qabaa'ilku si xoog leh ay isu dilayeen taasuna ay keentay gaajadii baahday wuxuu ahaan jiray abaanduulihii ciidamada qalabka sida
xukunkana waxa uu ku qabsaday afgembi aan dhiig ku daadan 1969 laakiin dee markaynu eegno kuwan iminka madaxweynayaasha sheeganaya ee kolba nimankan xildhibaanada ah dadka ka iibsanaya mid walba 30 milyan buu xaday 50 milyan buu xaday xeebtu sunku daadiyey maxamuud xasan xaaji cumar waxa uu hadda ku nool yahay magaalada London waxaana waqtiyada qaar uu ku qaataa gudaha Soomaaliya gaar ahaan miyiga magaalada Buuhoodle halkani waa ha noolaato ku soo dhawow Facebook-eena oo like saar ama follow leh si aad ula socoto mar walba wararka warbixinada iyo sheekooyinka ku saabsan nolosha Soomaalida mahadsanid ha noolaato